ma ogtahay in meesha ugu hanti badan dunida aysan ahayn goobaha laga qodo dahabka balse ay tahay xawaalaha maxaa yeelay halkaasi waxa ku caasan kumanaan riyooyin ah oo aan wiligoodii rumoobin buugaag aan laga qorin shirkadana aan laga dhisin sababtoo ah riyooyinkaas dadkii lahaa waxay lahaayeen barito ayaan bilaabaynaa imisa jeer ayaa naftaada u ballan qaaday inaad barito aad bedeli doonto imisa sano ayaa kaala soo gudbay adigoo dhahayo sanadka cusub ayaan isbedeli doonaa markasta oo aad ballan qaado oo aad dibna u dhigto kalsoonida aad ku qabtay naftaada ayaa daciifi doonta waxaad noqon doontaa qof isaga qudhiisa aanan isrumaysaneyn tusaale ahaan haddii aad maanta bilowdo 365 maalmood kadib waxaad noqon doontaa qof khibrad leh haddii aad sanad dambe sugto 365 maalmood kadib waxaad noqon doontaa qof isla meeshii taagan oo aan samaynin wax isbedel ah waxaa jiri jiray nin dhalinyaro ah oo hibo weyn u lahaa ganacsiga iyo abuurista wax cusub maalin kasta wuxuu taagnaan jiray xeebta isagoo oo eegaya badda fog maalin markaan helo doon weyn oo casri ah waxaan aadi doonaa jasiirada hantida si aan nolosheeda wax ugu bedelo sanad ayaa ka soo wareegtay ninkii wili xeebta ayuu taagan yahay isaga oo sugaya doontii riyadiisa waxaa agmaray nin oday ah oo wata doon yar oo duug ah alwaaxdeedanu ay qoyan yihiin odaygii wuxuu yidhi wiilow maxaad sugaysaa badda way degan tahay jasiiradana way ku muuqataa odayow ma rabo naftayda inaan khatar geliyo aniga oo wata doon yar oo dilaacsan waxaan sugayaa bisha dambe ama sanadka dambe marka aan lacag helo oo aan iibsado doon weyn odaygii wuu dhoola cadeeyay wuxuuna ku yidhi doonti ma ahan wax ku gaarsiinayo meesha aad rabto ee waa geesinimada aad ku kaxayn lahayd doontaasi odaygii wuu baxay 1 sano kadib ninkii dhalinyarada ahaa wuxuu taagan yahay isla xeebtii isaga oo aanan samaynin wax isbedel ah mise wax dhaqaaq ah isaga oo weynaaday oo gacmihiisi ay gariirayaan isla markaasna waxa xeebta ku soo xirtay markab aad u qurux badan oo dahab iyo hanti ka buuxda waxa ka soo degay odaygii hore oo markaan u muuqda boqor oo kale ninkii ayaa ku yiri xagee ka keentay markabkan weyn ma sanadkii dambe ayaad iibsatay odaygii ayaa ugu jawaabay maya doonteedii yareed oo aad aragtay ayaan ku safray markii aan dhaxgalay badda waxaan bartay sida loola tacaalo hirarka waxaan helay saaxiibo waxaan dhisay markabkan anigoo safarkayga sii wata adiguna waxaad sugaysay waqtiga saxda ah aniguna waxaan qabsaday hadda maantana waqtigii aad sugaysay wuu ka dhamaaday waayo ma haysatid xoog aad ku safarto ama aad wax ku qabsato una saaxiibkaygiiyo walaalkaygiiyo ma ninkii xeebta taaganaa ayaa tahay mise odaygii safarkiisii ku bilaabay wax yar uu haystay ha sugin markab weyn ha sugin bisha dambe isticmaal doontaada hadday rabto ha ahaato mid yar ama mid dilacsan si aad horay ugu sii wadato safarkaagii riyada haddii aad ilaa iyo hadda aad i dhagaysanayso waxaan ogahay inaad tahay qof raba isbedel dhab ah laakiin ogow daawashada muuqaalkani waxba kama bedelayo haddii aadan ficil samaynin marka uu dhamaado muuqaalkan haddii aad jeceshahay nuxurka noocan ah oo noloshaada dhisayo ilaawin inaad subscribe dhahdo si aysan ku dhaafin fariimaha dambe wadajir ayaan ku guuleysanaynaa intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan kaaga tagayaa fi amaanillah